إنا لله وإنا إليه راجعون. الله نحرسته وحا مغالada Hargeysa aas qaran loogu sameeyay marxuum ganacsade Xuseen Maxamuud Cawaale oo ku magac dheera gacma dheere oo kamid ah ganacsatada Soomaaliland. Waxa aaska qaran ee loo sameeyay ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxaana kala qayb galay madaxda kala duwan ee golayaasha qaranka ee Soomaaliland sida golaha wakiilada xubno ka tirsan golaha wasiirada madaxda kala duwan ee xisbiyada qaranka xildhibaan salaadiin cuqaal mayroom boqorro waxgarada iyo waliba dadweyne kale oo aad u tiro badan oo ka qayb galay aaskaasi. Mudane Axmed Maxamed Silaanyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa taasi qaran u diray Allah u naxariistay qoyskii eheladii qaraabada iyo shacabka Soomaaliland ee ka baxay marxuumkaasi. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنسان قاعد دارا نحرستي جنة إلى كورابشو إننا يأهل كجريدي كل جنة سمري من الله كسيو شخصية وين بوها شخصية وين ومقعي الشرف يمد كل بوها وحن الله يقبلنا إنه نحرستي جنة إلى كورابشو نجي فردوس إلى كورابشو أهل كي قرابة يأهل كجريدي كل جنة سمري من الله كسيو. gudoomiyaha golaha wakiilada xubno ka tirsan golaha wasiirada hoggaanka sare xisbiga talada dalka ee kulmiye ayaa iyaguna Ilaahay uga bariyay marxuumkaasi inuu naxariisto. waxaan tacsiin qaran gaarsiinayaa dhammaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ehelkii iyo qoysaskii iyo carruurtii iyo xaasaskii ka tagay Allah u naxariistay Xuseen Maxamed Cawaale gacma dheere oo shil ku geeriyooday ka warqabtaan waxaan Ilaahay uga baryaynaa in Ilaahay jannadii ka waraabiyo. marxuumku wuxuu ahaa nin aad iyo aad qiimo u leh Ilaahayna waxaynu uga baryaynaa in Ilaahay jannada firdowsa ka waraabiyo qoyskii iyo qaraabadii uu ka tagay ummadda reer Soomaaliland samri iyo iimaan Allah ka siiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. xaajiga marxuum gacma dheere Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. waxa uu kamid ahaa ganacsatada waaweyn waxa uu kamid ahaa talaqabeenka waaweyn ee dalka waxa uu kamid ahaa dadka magaca iyo muuqaba kule dalka waxa uu ahaa deeqsi waxa uu ahaa nin karaamo iyo sharaf badan waxa uu ahaa nin talaqabeena oo ummaddu aad iyo aad ugu ixtiraamto oo sharaf kule dhexdeeda waxa uu qayb badan oo nolosha ka soo qayb qaatay iyo horumarka maanta la gaaray kaalin muhiim ah oo muuqanaysa. waxa dadka maskaxda furan inay hal abuur sameeyaan oo ay wax soo kordhiyaan haday dhinaca ganacsiga noqoto iyo haday noqoto wax talada wax laga qabanayo nabadgelyada iyo wada deganaanshaha dalku leeyahay ilaa intii aynu Soomaaliland unugnay ilaa maanta oo aynu wada joogno. ka horna wuxuu lahaa taariikh muhiim ah muddo dheer buu ku soo jiray ganacsiga maanta aaskiisa ka arkaysaan baabuurta iyo tirada dadka joogta oo aad moodo aynaan hore u dhicin. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. dadka intaasoo dhammi u ducaynaysa waa ahlu janno Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo. dawaad aragtaan maanta inaan Soomaaliland intii soo gaadhaysay ay marxuumka u timi way wuxuu ahaa nin qaran Jamhuuriyadda Soomaaliland magac ku leh hadii qofun magac ku leeyahay. anu waxaan raggii ugu dambeeyay aniga iyo wasiir xagla toosiyo iyo dhowr qodhow la socda oo aan wada safarnay markii arrintu dhacdayna gacan ku dhiglaha soo qabtay. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo. Ilaahay waxaynu uga baryaynaa maanta oo kale inaynu ducayno weeye inuu Ilaahay qabrigiisana uu nuuro qowlka taabidkaana waafajiyo ayaanu leenahay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. xaaji Xuseen Maxamuud Cawaale gacma dheere runtii waxaanu ahayn jaar waxaanu ahayn saaxiibo subaxa ugu dambeeyay markii uu baxay salaada subax waanu isku dhac tukanay. wuxuu runtii nin khayr badan oo samafalka ku wanaagsan min akhlaaq wanaagsan oo runtii bulshada qiimo badan ku leh. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u weydiinaynaa dambi dhaaf iyo naxariis baynu u weydiinaynaa. geerida gacanta ka xaq daran dijay Xuseen gacma dheere eheladii qaraabadii iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland waa geerin naxdin leh. Ilaahay jannadii ha ka waraabiyo
dhammaanteedna samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo guud ahaan dadka reer Somaliland waxaan ka tacsiinayaa marxuumka ninka weyn ahaa ee dhintay gaar ahaan qoyskiisii waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay cawl khayr qabayn ilaahay ugu bedelo waxaan tacsiin u dirnaa eheladii qaraabadii asxaabtii iyo dhammaan shacabka reer Somaliland geerida naxdinta leh ee ku timid ganacsadaha weyn Xuseen ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo dhammaanteedna ilaahay samriye man naga siiyo ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu dambigiisa dhaafo ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu ka xoreeyo naarta ilaahay inuu qabriga ciidigiisa ka saaro dadka reer Somaliland samriye man ka siiyo caa'iladiisa ilaahay waxsan inuu ugu bedelo maanta arkaysaan goobtan xabaalihiina sablood oo isugu nimid dhammaanteen walaalkeen inaynu ku rogno xabaashiisa gurigiisa rasmiga ahaa oo ilaahay uga baryayno ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu walaalkeen Xuseen Maxamuud Cawaale gacmo dheere oo runtii aad iyo aad u qaali ahaa maanta inaan halkan runtii aynu ugu ducayno qabriga inuu ilaahay u waasiciyo ayaan ilaahay uga baryaynaa waxana waxyaalaha taariikhdiisa aanu ka hayno waxa kamid ah waxyaalaha sadaqa jaariyada ah ee qofka ka hadhaya inuu aad uga shaqayn jiray marka aad iyo aad ayaan naxariistii janno ilaahay uga baryaynaa inuu alla ka waraabiyo nin weyn buu ahaa oo qaaliya oo qaranka ku qaaliya oo halgamaaya oo oday tala qabeena oo in badan aqaanay oo odayaasha qarankan ka taliya oo ahaa ilaahay isaga hoona xariisto reerkiisina ciwal khayr qaba halkiisa Allah soo dhigo waxaanu taxsiinaa qoyskiisii caruurtiisii iyo qaranka dhanba Xuseen Maxamuud Cawaale Xuseen Gamca Dheere oo inuu aaskiisii saaka joogno ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo ilaahay qabriga ha u nuuro ilaahay ubadkii uu ka tagayna awal khayr qabaha siiyo Xuseen Gamca Dheere waxa uu ahaa astaan qaran qof noqon kara astaan qaran buu ahaa adoonad iyo aad wanaagsan buu ahaa gacan ka qadaran baa dishay waxa kale oo halkan bulshada reer Soomaaliland uga iftiiminaya sidii amarkii madaxweynuhu shalay ku baxay in saacada aynu joogno uu gacan ku dhigli saaray gacanta oo dacwadiisu socoto si degdegana waajibkiisa loo mariyo taasaan ummadda reer Soomaaliland u bayaaminayaan oo cadeynaya waajibkiisa si degdeg loo marinayo marxuumka Gacmo Dheere Allah u naxariisto waxaan ilaahay weydiinay naxariistiisa janno wuxuu ahaa sida la sheegay madaxweynuhu madaxda kale oo dhan way sheegeen nin maaragtay qiimo badan oo halgamadii dalkan oo dhan maaragtay qayb ka ahaa waxaanu ilaahay weydiinay ilaahay jannadii firdawsa gaarsiiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun horta marka hore marxuumka dhintay in ilaahay naxariis janno ka waraabiyo jannada firdawsana albaabadeeda u furo qoyskii iyo qaraabadii iyo ubadkii uu ka tagay ehelkii iyo Soomaaliland iyo muslimiinta dhamaantoodna ilaahay samiriye iimaan naga siiyo waxaan halkan tacsiin murugale aan uga dirayaa marxuumka oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryayaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu jannadii firdawsa geliyo ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan dadka jimrada Soomaaliland oo dhan waxaan leeyahay samiriye iimaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ilaahay uga baryaynaa marxuumka Xuseen Maxamuud Cawaale inuu jannadii ka waraabiyo oo jannadiisa firdawsa geeyo ehelkiisii iyo dhammaanteen inna uu samiriye iimaan ka siiyo isaga iyo ehelkiisaba waxaan aad uga tacsiyadeynayaa caruurtiisa qoyskiisa qaraabadiisa iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay ilaahay samiriye iimaan naga siiyo isagana jannatul firdawsa ha geliyo salaadiin cuqaal waxgarad iyo madax kale oo iyaguna ka hadlay aaska marxuumka loo sameeyay ayaa ku sifeeyay inuu ahaa shakhsi ummadda ilaahay ay ka nabadashay isla markaana u rajeeyay inuu naxariistii jannatul firdawsa ilaahay ka waraabiyo marxuumka ayaa ka mid ahaa ganacsatada Soomaaliland ee muddada dheer ku soo jiray arrimaha ganacsiga waxaana maanta lagu aasay xabaalaha Naasa Hablood ee magaalada Hargeysa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun